asalaamu calaykum. dad ayaa soo weydiiyey coinkee ugu fiican oo lacag ka samayn kara intay ka maqleen maalmahan miidiyaha bitcoin way soo noqotay cryptocurrency marka waxay rabaan in la ogaado coinka ugu fiican ay helaan ay lacag gashtaan oo lacagtooda lacag fiican u dhali karto. waxaa lagu leeyahay waxaa noo sheegtaa coin hadda qiimihiisu yar yahay oo ay u badan tahay inuu kor u kaco markuu suuqa kor u kaco say lacag 10 jibaar ama 100 jibaar ama intay $1 gashtaan $1000 $10,000 $20,000 u gaari. marka waxaan rabaa inaan idinkaga sheekeeyo taariikhdii ama casharadii aan ka soo bartay suuqan anoo ku soo jiray ilaa 2017 oo 2017 markuu qiimaha kor u kacay suuqaani la socday oo haddana qiimo dhicii la socday 2019 dhamaadkiisii 2021 bilowgiisii oo haddana la socday markii suuqan kor u kacay 2021 qiimo la socday iyo hadda uu marka kale u dib u dhacay ilaa aanka oo hadda la rajeynayo inuu haddana dib u soo noqday xogaa la qaad hadda moodi inuu bitcoin soo noqotay iyo suuqanba casharaas iyo aan ka soo bartay iyo khibradaas haddana in yar in la wadaago maanta waxa weeye qofka bini'aadamka maskaxdiisa u shaqeysa waxa weeye markuu helo coin raqiis tusaale ahaan oo maanta aad u jaban baa heshay horta inaa heshidba marka hore waa adag tahay coinkaas raqiiska ka soo qaad waa heshay nasiibkaaga wuxuu noqday inaa coin raqiis heshay oo fiican coinkii haddana wuu kacay $1 baa gelisay $1,000 $10,000 bay ku noqotay. maskaxda bini'aadamka waxay ku shaqeynaysaa ama u shaqeynaysaa marka 10,000 lacagtii ku noqoto waxa is leedahay coinka waa sii soconaya wuxuu gaari doonaa 20,000 30,000 ayaa haddana waxa heli doontaa ama arki doontaa group ayaguna ayay taadii kala gatay oo ka sheekeynaya dhahay waxay gaari doontaa lacagta cirkaasi gali doontaa 10,000 waxay ku noqon doontaa 50,000 iyaa la gadin wayna sugtaan wayna adkaysataan baa lagu leeyahay adigoo sugaya in 10,000 20,000 ku noqoto ayaa wax arkaysaa coinkii dib u soo noqday oo 7,000 noqday haddana waxa lagu leeyahay maya iska gadin waxoogaa yar hoos dhaca yimid way soo noqon doontaa wayna adkaysatid markaas wax isku sii dhigaysa waxa leeyahay waa run markaan waxay sheegayaan xoogaa yar hoos dhaca yimid marka iska sug wili marka maskaxda bini'aadamku ma shaqeynayso 7,000 baa haysataa ilaa lacagta gashatay 6,000 baa faa'iido joogtaa bal qayb gal ama lacagta gashatay ka soo bixi marama lagu macnaha maskaxda badan dadka inta badan ba ka hadlaya sidaa kuma fikiraan wax badso ayaa maskaxdooda ku jirta aniga igu dhacday dad badan oo kamid ayay ku dhacday coinana ka sheekeyn jiray 2020 fiidiyoyaasheeda dad daawateen oo aan dhihi jiray faa'iido ayaa bay dhali doontaa waagaas way dhaleen lacagta saan kaga sheekeynayo ayaa dhacday 10x oo kaleeto qaarkood aan ka helay kadibna saa u sugaysid inay sii kacdo ayaa wax arkaysaa baashi gadgadaal u socota ilaa marka dambe haddaa 1,000 gelisay 1,000 ay minus gaartid oo 500 noqotid marka 500 gaartidna waxaa leedahay hadda already minus baa ku jirtaa xilli la gada lama jooge way soo noqon doontaa iska sug markaas waxaa dhacaysa inay saas baashi ku baaba'do oo 5 sano 4 sano markaa sugaysid ay hawada ka baxdo tiimkii waday kala yaacaan baashin saa lagu ilaawo saas ayay u badan tahay suuqan way dhacday 2013 bay dhacday 2017 bay dhacday 2021 ayay dhacday hadda fiiristay listiga dadka qof walba listigu ka hadli jiray waagaas hadda fiirsid coinanka dhihi jireen waa fiican yihiin markii meeshii gaareen waagaas 2020 uma badna xilligan haddii crypto soo noqoto inay gaaraan uma badna marka waxaan taladeedu ama fikradeydu noqotay ama waayaan dambe igu aragteen oo ka hadlaya bitcoin kaliya maxay tahay bitcoin sababta aan uga hadlayo kaliya bitcoin waxa ii muuqata manfac ay leedahay faa'iido ay leedahay iyo problemka xalinayso bitcoin waxay xalinaysaa inaad lacagtaada ku save garaysatid intaad adoo shaqaysta 10% ama 10% kamid lacag ku soo dhacda intaad gashatid bil walba aad sugtid 20 sano 10 sano iyo wixii ka badan si qiimaheedu kugu hayso lacagaha hadda caadiga sida US dollarka eurada poundka inflation ayaa wax leeyahay ayaa cunaya oo qiimo dhac aad u xun ayaa ku socda sababtaas ayaa dadka Soomaaliya qaarkood u gataan dhulka sababtaas ayaa guriyo lacag loo galiyaa sababtaas ayaa business loo galiyaa marka hadda u gashanaysid suuqan u soo galaysid ina bitcoin ku save garaystid lacagtaada oo manfacaas aragtid faa'iidooyin kalena way leedahay bitcoin lada lacag dawlad controlsho ma ahan oo dawlad hadda Mareykanka kala dhihi karto wadankan iskuma fiicnin waa in suuqa lacagaha laga saaro kale sidii hore u dhacday Ruushka kale ku dhacdo kaleeto way ka hortagaysaa waxay kale oo bitcoin ka hortagaysaa inaan waa lacagan dawlad gaar u lahayn oo lacag adigu haysatid
cid ka ku diidi karta ma lahan waa lacag si cadaalad ku soo baxday waxyaalo badan bay leedahay oo faa'iido ah suuqa kaleeto cryptocurrency kaleeto sida Ethereum Cardano Shiba Inu waa kuwa ugu waaweyn iyo kuwa kaleba waa wax dad ay soo saareen sida business qof uu leeyahay kaleeto laakiin Bitcoin qof aan la aqoon soo saaray 2008 markii soo baxaysay adoo Soomaaliya jooga waxa awood u yeelan lahayd ina qofka ugu horeeyo ka qayb qaata ay noqotid laakiin coinka kaleeto dhan dad group ayaa guri isku soo xiray marka hore ayay waxooda qoondaystay kadibna suuqa ku soo daayay markay ay kala baxeen intii ugu badnay Bitcoin saas kuma dhicin si cadaalad ay ku soo baxday problemka xalinaysan ilaa maalintii koowaad ilaa haddana waa cadayd waa mid lacagta ku saabsan coinkan kaleeto waxay ku leeyihiin may smart contract baa haynaa wax kala haynaa 10 mashruuc ay ku sheegayaan hadda dib u fiirisid si rasmi hadda u fiirisidna kaliya waxay hayaan waa token ayagu sameeyeen token macnaheedu waxa weeye lacag ayagu sameeyeen sida Bitcoin kale lacag u sameeyso kaleeto marka ujeedku dhan waxa weeye lacag buu imaanaya lacagtaas marka waxay noqonaysaa inay noqoto lacagtuna ma ahan wax qof walba sameyn karo waa wax sida dahabka kaleeto hadda ilaahay waagi hore dahab ayaa lacag la isticmaal jiray ilaahay baa dhulku abuuray dadku dhan dahabku u dhaxeeyo qof gooni oran kara anaa soo saaray ma jirto marka Bitcoin dabacadaas kale ayay leedahay dahabka kaleeto laakiin Ethereum kaleeto ninkan soo saaray la yaqaano groupki soo saaray la yaqaan ilaa hadda ay maamulaan dhowr jeer ay wax ka bedeleen lacag ma noqon karto marka aniga doodaydu sidaas weeye waayaan dambeeyay sababtaas ayaan u dhahaa Bitcoin kaliya hala iibsado oo qofkii iibsanaya waxaan suuqan soo galaya hadaa soo galaysid rabtina wax iibsatid Bitcoin iibsatidna ha ku talagelin ina bisha dambe iyo bisha ku sii xigtaba ay lacag milyan ka sameeysid wayna noqoto sababta u soo galaysid suuqan inaad ku save garaysid lacagtaada 5 sano 10 sano 20 sano ka badan aad sugtid sidii dhul iibsato kaleeto ama guri aad iibsato kaleeto aad lacag u gashatay Bitcoin jidkaagu inuu soo noqdo talada lacagtaada iyo maalgashigaaga adiga ayay ka go'an tahay fiidiyogan kaliya waxa u daawatay inuu 10 ahaan kaliya yahay iyo sida aniga shakhsiyan ila tahay inaad ogaatid go'aankaaga adaa iska leh marna anigu qofna kulama taliyo lacagtaas meeshu gashanayo qofka asaga xor u ah adigana laga raba inaad go'aankeeda gaartid laakiin waa inaad marka hore barataan isku daydaan maxay tahay xalka ama manfaca ama faa'iidada ku jirta coinkan intaad iibsanin kadib markaa fahatid ina lacag gashatid hadii kale waxay noqonaysaa waxa la dhaho price speculation waxa la dhaho oo ah baqtiya nasiib ama lottery oo kale waxa inay noqdaan oo ah lacagtan kor u kacaysa kaliya ay ujeedkaagu noqoto hadii aad manfaci fiirin waxay noqonaysaa coinkan qiimihiisa ayaa kor u kacay kaliya u lacag gashanaya taasna speculation noocaas su'aal weyn ayaa saalan oo shubaha ayaa ku jirta waxa noqonaysaa sidii qofkii gamblerka gambling oo kale ay noqonaysaa sida dadka qaarkood ay leeyihiin marka taa uga taxadirtaan in noqonin gambling kaliya waa inaad wixii manfacooda fahantaan marka faa'iidadeedii aragtaan kadib haday weli si aragtid inay waxaan wax sii soconaya yihiin ayadoo u maalgashata sidii adoo company kastoo kaleeto hadda company cusub oo maanta la bilaabayo diintu oo gashay inaad lacag gashatid laakiin company weyn oo manfaciisa marka hore soo baartay soo ogaatay faa'iidadiisa kadibna saa ku gashatay lacagteedii laakiin hadda dadka lacagta suuqan gashta cryptocurrency-ga ujeedkooda ugu muhiimsan waxa weeye qiimahan ayaa kor u kici doona bari baa gadi doonta taasna waxay noqonaysaa waxa la dhaho speculation-kii diintu ay ama dadka culimada ay ka hadlayeen lahaye ma fiicna markii hal soo baaro dhinaca speculation-kan ayaa loo badanin yaa lagu sheekeynin qof ama qof kugu sheekeynin coin cusub ayaa jira ama coinkan ayaa 10 jibaar laga heli karaa dadkaas ku dhahay coinkan 10 jibaar baa laga heli karaa ujeedkooda kaliya waxay coinka in la kiciyo oo hadhowna markuu price kaco la iibiyo dadka dambe cusub soo gali doona qiimo ku dhaco waxaaga dhan waxay noqonayaan waxa aan ku sheegay sida aad ka soo sheekay oo wadaadada qaarkood ay shaki galinayaan marka hala soo baaro wixii aad fikradeeda mid ka duwan hadaa qabtaan iisoo sheega hoos ku soo qora aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.